daawadayaal akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee hadda naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegayaan in askartii ugu faraha badnayd ee boolis ah oo ku dhaawacmay mudaharaadyada ka socda magaalada Hargeysa in ay markaasi kor u dhaafayaan boqolaal ruux oo askari. waxaa la sheegay askarta ugu faraha badan in ay ka soo gaadhay shiidmada ay tuurayaan dadka mudaharaadaya ee ku sugan magaalada Hargeysa. haddaba daawadayaal muuqaalada halkan aad ka arkaysaan waa ciidanka booliska Somaliland oo lagu dabiibayo ambalaasta dhexdooda. waxaa la sheegay in ilaa hadda booliskii ugu faraha badnaa ee gudaha magaalada Hargeysa markaasi dhibaato ka soo gaadhay in ilaa hadda aysan soo gaadhin dhakhaatiirta gaar ahaan hospitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ee dowladdu gacanta ku hayso. wadayaal booliska oo hadlay qudhiisu waxa uu sheegay in 62 askari ay ku dhaawacmeen inkastoo tirada rasmiga ah saacadda ka dambaysa ay isbedelayso. haddana wararkii ugu dambeeyay aan heleno waxay sheegayaan in askartii ugu faraha badnayd ee ka qayb gala banaanbaxaasi oo iyagu markaasi doonayay inay sugaan ammaanka guud ee banaanbaxaasi ayaa waxa la sheegay in iska horimaadka ka dhexdhacay ciidanka iyo sidoo kale dadka shacabkaba inuu gaadhay meeshii ugu sareysay. inkastoo ciidamada booliska Somaliland ay xabad nool u adeegsadeen dadka shacabka ee markaasi ku mudaharaadayay gobolada waaweyn sida magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalada Burxo. inkastoo magaalada Hargeysa wararku ay sheegayaan askartii ugu faraha badnayd oo aad muuqaalkanba ka dheehan kartaan in halkaasi lagu dhaawacay. daawadayaal dhanka kalena safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fadhigeedu yahay ayaa waxay markaasi soo saartay bayaan adag oo ay markaasi ku cambaareynayso dhibaatooyinka ka jira markaasi ay askarta sidoo kale dadka shacabka ay geysanayaan. warkooduna waxa uu qornaa sida tan: dowladda Mareykanka ayaa tiri xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka Somaliland ba waxaan ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah ugu soo laabtaan miiska wada hadalka. war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhinacyada ishaya ee siyaasadda in ay xaaladda dejiyaan isla markaana si degdeg ah ugu soo laabtaan miiska wada hadallada ayaa lagu yiri qoraal mar dhaweed ka soo baxay safaaradda Mareykanka. haddaba daawadayaal wararkii ugu dambeeyay waa intaasi, wax dheeriya kama aysan soo bixin inkastoo dhimashadu ay saacadda ka dambaysa isbedelayso oo warar hor leh ayna soo gaadhayaan. daawadayaal muuqaalkan si share gareeya si ay u gaadho dadka goobtaasi ka maqan. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.